kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada warbaahinteena Minisom iyo barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida oo ay noo soo diyaarisay Khadra Guray anigoo ah Maxamed Muusana aan idin la socodsiin doono barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida oo aan toddobaadka soo soo gudbino horumarka iyo waxyaalaha arrimaha bulshada ee ka dhaca dhulka Soomaalida toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa mashaariicaha kala duwan ee horumarka dhaqaalaha ee gobolka Mudug ee Puntland. sanadihii u dambeeyay waxa isdhinac socday dhowr mashruuc oo lagu horumarinayo dhaqaalaha deegaanka gobolka oo ay si kaashanayeen ganacsatada bulshada iyo dowladda Puntland kuwaas oo lagu horumarinayo mashaariicaha sida gaarka loo leeyahay sida dekada Garacad iyo wadooyinka magaalada Gaalkacyo gudaheeda iyo kuwa isku xira magaalada iyo deegaanada muhiimka ah ee gobolka. Garacad oo ku taala badweynta India ee gobolka Mudug ayaa si degdeg ah isugu bedeshay deegaan xeebeed xasiloon waxaana ay noqotay mid ka mid ah marinada dhaqaale ee dalka oo ugu rajada weyn leh. Horumarka dekadaha Garacad oo ah mashruuc astaan u ah barnaamijka kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland ayaa noqotay maalgashi istiraatiiji ah oo lagu talagalay in lagu xoojiyo ganacsiga iyo horumarka dhaqaalaha iyo abuurista xasilooni dhaqaale oo mustaqbalka fog ee uu gobolku yeesho. Garacad waxa ay ka duwan tahay dekado badan oo Afrikaan ah oo ku lug leh maalgashi shisheeye ama qayb ka ah iskaashi dawladeed iyo kuwa gaarka loo leeyahay. dekada Garacad waxa la dhisay iyada oo aan wax deyn shisheeye ah la helin iyada oo gabi ahaanba ku tiirsan maalgashiga ganacsatada gudaha iyo qurba joogta Soomaaliyeed loona maray sanduuqa maalgashiga kaabayaasha dhaqaale ee wadaagsan. dekadu waxa ay guul taariikhi ah u tahay isku xirnaanta Soomaalida iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale waxaana ay ujeedadu tahay in la isku xiro gobolka aan badda lahayn ee bariga Itoobiya iyo jidka ganacsiga badweynta India. dekadu uma shaqeyso si gooni ah saameynteedu waxa ay aad ugu tiirsan tahay isku xirka wadooyinka Garacad ku xiraya xarunta ganacsiga ee Gaalkacyo iyo marinada ganacsiga koonfurta galbeedka iyo waqooyiga deegaanka. wadada Garacad Gaalkacyo ayaa door weyn ka qaadatay horumarka dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika waxaana ay yareyn doontaa saameynta waqtiga safarka baabuurta xamuulka qaada iyada oo hoosna u dhigi doonta kharashka gaadiidka safarka dhaadheer soo geli jiray iyada oo dhulka miyiga aadka u fogna u furmi doono ganacsiga iyo suuqyo. wadada Garacad Gaalkacyo Galdogob oo xadka Itoobiya gasha ayaa dhererkeedu uu yahay 303 kiiloomitir. wadada oo gacanta lagu hayo ayaa muhiim u ah isku xirka dekada cusub ee Garacad iyo gobolada bartamaha Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo abuuraysa wado ganacsi oo cusub oo u adeegta baahiyaha gobolka iyo dalalka dariska. juqraafi ahaan Garacad waxa ay ku taalaa bartamaha Soomaaliya una noqonaysa deegaanada dariska la ah jid ka gaaban kuwii ay hore u isticmaali jireen gaar ahaan sanduuqyada khaliijka waxaana ay isku xiri doontaa badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo suuqyada adduunka. wadadan ayaa noqonaysa laf-dhabar dhaqaale oo ay leedahay Puntland. dhinaca kalena waxaa sanadihii u dambeeyay ka socday magaalada Gaalkacyo mashaariic lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka lagu fulinayo isku tashi ka yimid bulshada deegaanka iyo maamulka dowladda hoose iyada oo gacanta ay ka geysanayaan shirkado maxalli ah iyo dowladaha hoose iyo dowladda Puntland. waxaana ka mid ah mashaariicaasi wada dhererkeedu uu yahay 1.15 kiiloomitir oo ku taala bartamaha Gaalkacyo oo dhawaan la dhammaystiray. jidkaas oo muhiim ah horumarka iyo socodka gaadiidka iyo bilicda magaalada ayaa lagu dhisay si isku tashi bulsho ah. wajiga koowaad ee mashaariicda ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa dayactirka degdega ah sida dayactirka qaybaha xudunta u ah isku xirka Gaalkacyo iyo magaalooyinka u dhow iyo jidka weyn ee Garowe Gaalkacyo. wajiga labaad oo ah dhismaha wadooyinka loo balaarinayo lana cusboonaysiinayo iyada oo lagu darayo qaybo cusub oo la wanaajiyay. marxaladda labaad ayaana ka koobnaan doonta dhisidda biyo mareeno la farsameeyay la kabyo buuxa oo laami ah iyo casriyeynta wadooyinka. shaqooyinkan
ayaa waxaa qayb ka qaadanaysa hay'adda wadooyinka Puntland ee PHA iyo wasaaradda howlaha guud ee Puntland. waa kan gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland Cabdifataax Maxamed Sugule oo ka hadlaya hawshii ay ka qabteen wadooyinka deegaanada Puntland 3 sano ee la soo dhaafay. From Boosaaso ilaa Gaalkacyo 108 kilomitir oo laami ah baa dib u dhis lagu sameeyay 3 sano la soo dhaafay. 146 kalfartisna waa la dhisay ama biyo mareeno 7 bridge-na waa la dhisay. dhinacaas waa dib u dhiskeen dayactirka waxaa la dayactiray laamiga 797 kilomitir oo laami ah waxaana weeye jidka weyn oo isku xira from Boosaaso Garowe Laascaano Garowe Gaalkacyo waxaa laga shaqeeyay 116 kilomitir oo jid cadda ah waxaa ka mid ah jidka isku xira Gaalkacyo Bursaalax waxaa ka mid ah jidka isku xira Lafagorayo 26 kilomitir kaas laftigiisu waa 25 kilomitir Bursaalax kan Lafagorayana waa 26 kilomitir waxaa ka mid ah jidka Sheerbi Dhahar oo laga shaqeeyay jidka Xingalool jidadkaas oo dhan waa jidad iyaguna xagaafiye ah oo la dhisay wadarta jidadka laga shaqeeyay kilomitir ahaan waxaa laga shaqeeyay 1021 kilomitir oo jid ah marka la isku daro jidka laamiga ah iyo jidka xagaafka waxa hadda gacanta lagu hayaa wadada Gaalkacyo Bacaadweyne oo shaqadeedu ay bilaabantay bishii August ee sanadkan 2025 wadadan oo dhererkeedu yahay 40 kilomitir waxaana ka mid ah mashaariicaha lagu maalgelinayo cashuurta laga qaadayo shacbiweynaha Puntland wuxuuna muujinayaa doorka togan ee dowladda Puntland iyo shacabku ay ku leeyihiin horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanada Puntland. Shirkadda dhisaysa ayaa ka shaqeynaysa halka ay shaqadu marayso. waxaan joognaa site-kii Bacaadweyne aanu ka shaqeynaynay Bacaadweyne dhismada la yiraahdaa shaqadu way socotaa wali ma gaarin meeshii loogu talagalay oo dadku ay mari lahaayeen oo la fasixi lahaa oo lagu faan lahaa laakiin waa ku dhex jirnaa. waxaan rabnaa marka hadda inaanu sheegno inay qabsoontay 5 kilomitir iyo dhowr boqol oo ku aadan Bacaadweyne dhinaca soka ah iyo dhinaca shishe magaalada Bacaadweyne maadaama biyo gelin iyo hawl ku dhex jirto iyo diyaarin bay ku socotay iyadana wali ma dhamaan taageershika 8 kilomitir iyo 700 baan sameynay insha Allah taala qorshuhu wuxuu yahay in layerkii koowaad baa ku dhamaaday testigii compact testing waa laga qaadi doonaa dabadeedna layerka dambe saari doonaa markii levelkeeda iyo surveyerkeeda iyo compact testing waxa dhamaadana ilaahay idinka waxa bilaaban doonaa laamigii mashaariic lagu dhisayo ama lagu dayactirayo wadooyinka deegaanada ayaa la filayaa in ay yareeyaan baahiyaha yimaada xilli roobaadka oo ay wadooyinku si burburaan taasoo dayactirka iyo dhismayaashu ay soo gaabin doonaan waqtiga safarka ayna kor u qaadi doonaan ganacsiga shaqo abuurka iyo horumarka adeegyada maxalliga ah. hirgelinta mashaariicda dib u dhiska wadooyinka deegaanada Puntland waxaa ka qayb qaadatay dowladda Puntland dadka deegaanka dowladaha hoose iyo saaxiibada caalamiga ah. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijkan toddobaadka Soomaalida waxaan la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Muuse intaan mar dambe kulmi doonno waxaan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.